اللي أنا استفدته حوق ملي حول ملي هنتي ملي عافماد ما هيو أنت اللي مش قيسني منه ما هيو إلهي waxaan ka baraya ummadiisa in ummadda islaamkiisa naxariisto meel joogan waxa ay sheegtay inaanay lahayn xoog xoolo iyo caafimaad ay wax ku qabsato oo ay taas u dheer tahay in inanteeda oo dhimirka ka xanuunsanaysa ay la joogto mar walbina ka baxsato awood ay ku soo qabatana aanay lahayn hooyo Suleekha Xirsi Aadan oo kamid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa iga sheekaysay xaaladdan murugada leh oo qof kasta oo codkeeda maqla uu ka damqanayo dhibaato anaga ilmahan haysata baralaan beedlaan waxaan ku dhimaanta hadii aan wayga xanuunsanaysaa wayga carraysaa wayga hordisa ma soo qaban karayo awood ma hayo inanteedana aan la jooga waa inay iska danyar dulsaar baan ku ahay ilmihiina da ilmo ka carraya cid ku soo qortanaad waayso guri aad ku xirtanaad haysanin in badan aan qarsanayaan muslimka ilaahay kala xishoonayo laakiin iminka ay hay'ato daan iga soo dhaadhacday ilmo caaro ka fardhinayo ka carraya oo waxaan ku riday waa hilib bisil iska tagayo meesha doona iska maraya xitaa muslimka aan ka daba galin oo oranaynin muslimka ilaahay bal bahala ay rag iyo dibadda iyo dibtirta ka gal aan garanay oo saas u noqoto mise marka soo miirooda laga yimi ay ka timaaday marka lagu soo wixii ka tagaan ayay imanaysaa waxaan ku riday saddex habeen iska maqnaanaysaa waa la igu dayriyay كيدلي ويجو ديري دتكودي ويجو ودا ديريان عيد الله عليه عيد ما أنت نقادنا سيدنا وبتاعنا ما بكا معين بالله هاي مركي ورنا وحن سكاهات وقف برسيتو سكا نافع بنا إيه كانوا وحن هاي معين بايجو سكري حتى عدد برا هاي ستوي المهم هو بدك حرام كرتاي ومسلم كابد لا حدا ورنا يدود كوه هايسنا هاي برا دي ما هايستو وحن كل حسية ما هايستو ميل أنا العرّة ما قرنا يحوق مليه أنا كنت بعرّة intii awood lahayd maanta ilaahay badana waxay ku yiraahdeen laba qaawin isma qaadi karto iyada in waxaysata bakay dhalay waxba haystaa laakiin wuu dayriyay marka horna waaba inta ku kala tagno maxay tahay waan kala socono waan kala dhaqaajinay ka bacdina markay ka dhibaatada timi waaba igu sii nacayba iyada labadeedaba wuu erinayaa marka aan la soo hadal qaado waxaan ku yiri dhibaatadaas aan haysata ilaahay ummadda islaamku waxaan ka codsanayaa inay إن حانوين حرستان هوسي dhibaatada ay haysata way iga soo gargaara in ilaahay ka bariyo mudis waxa la leeyahay isdabtirto xoog malihi xoolo malihi hanti malihi caafimaad ma hayo intii lagu shaqaysanay midna ma hayo ilaahay waxaan ka bariyo umadiisa in ummadda islaamkiisa naxariisto meel joogan oo ma ilmaha waliba caarka ay ugu sii naxariistaan anigu dadka ma xitaa dadka ka daba galo wala fadhiisanayo wala cunaya wala cabayo لكن يدي عندنا ما جلس عندنا لما فريسنا عندنا لما عنا عندنا لما عبسي يدي يبها القوس كلت مركا وعار هل سبير رجوت هاي ويسكلي بعطي سنت هاي إيه مكوا تاسو فريد عليه لكن مركا لو جسوا دقوا عندنا ما وجه كنا سب واحد كل بابور كساو تيجي سقف قلب هل كيله هاي جيو أيوم بيكون هجاجس وما ده إسلام كوا قعد سنة وقعد سنة وقعد سنة إيه يسون حرستان ويلما يكون حرستان وحيابا لسكون عقبية جرت ummadda islaamku waxa ku codsanayaan ay soo dadaalaan oo ay soo maxay tahay soo duceeyaan marka laga imaado xaaladda ay hooyadana u dirtay ummadda muslimiinta ah inay caawiyaan waxa ay fariin dheer u dirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ummadda islaamka kale ee caalamka joogta marka ka imaado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi waxaan weydiisanayaa maanta dalkan jooga waxa dalka iyo dadka cuqubaynayana waa dadka masaakiinta darbiyada jiifa iyo anaga maanta meelaha ku loosnay maanta xishoonayna xishoodka maanta markuu dhibaatada naga tanbadatay aan soo baxnay waxaan ka codsanayaa isaga madaxweynaha oo maanta dalkii joogay inuu wax noo taro wax noo qabto oo hoos noo eego oo maanta bariyo baytoona ma haysanay uu hoos noo eego waayo suquxoontiga xitaa meelaha kale ka imanayna dhaama waayo sababta iyaga waba la arkayaaba laakiin dadka dalka hoostiisa jooga cidi ma arkayso marka inta islaamka kalena waan bariyaa madaxweynahana isagana waxaan sheegayaa inuu isna hoos noo eego haddaba walaal ilaahay waxa uu yidhi haddii aad dhulka iskoga naxariisataan anna samada ayaan idinka naxariisan doonaa qof kasta wixii uu awoodo ha ugu hagaajiyo lambarka shaashadda ka muuqda